kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaanu idiin soo gudbinaynaa xogtii ugu dambeysay dagaal qaraar oo maalintii labaad ka socda magaalada Cerigabo khasaaraha kala duwan ee dagaalka ka dhashay iyo aaga haatan uu ka soconayo ayaan idiin soo gudbinaynaa balse haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee soo booqatay subscribe-ka noo taabo muuqaalkana like saar si dad badan uu gaaro Sahal Software International College computer sidiisaba sida loo isticmaalo software-rada oo dhan sifahaad u marayso waxa si fudud kuugu baraya Sahal Software International College computer sanadiisa software hardware iyo sagaal kala xirfadood waxa si fudud ku bari doono Sahal Software International College yuku seegine hadda Sahal Software International College waa college lagu barto xirfadaha kombiyuutarada tiknoolajiyada ama xirfadaha IT oo dhameystiran xirfadaha asaasiga ee xafiisyada looga shaqeeyo oo waliba degdeg loo barayo ardayga nasiib u yeesha inuu ka mid noqdo Sahal Software International College Sahal Software waxa lagu bartaa hardware oo ah sida uu ardayga u baran lahaa cilad bixinta kombiyuutarada sidoo kale Sahal Software International College waxa si sahal lagu barayaa accounting package software oo ah sidii aad shirkadaha waaweyn xisaab xirka ugu sameyn lahayd sida QuickBook alla ilaha la isu sheeg Sahal Software qofkii ka doqonsane dhammaanba dhalinta meel kasta caalamka ka joogaan Sahal Software adoo gurigaaga jooga ku xiro oo wax ka baro sidoo kale Sahal Software International College waxa lagu barayaa graphic design oo ah sida loo edit gareeyo software-rada ama waliba fiidiyowyada la jarjarayo sida sawirrada iyo wixii la midka kooraska lixaad ardaydu waxa ay ku baranayaan web design waliba noocyadii ugu dambeeyay Sahal Software wuxuu wax kugu barayaa qaab online ah meel kasta oo caalamka ka joogtid dalka hooyo dhexdiisiyo gobol degmo iyo tuulo ayaa meel kasta caalamka ka joogtaaba Sahal Software International College waxa uu ku barayaa qaab online ah fiiro gaar ah Sahal Software International College waxa aad ka baran kartaa luqadda Ingiriiska qaab online ah sidoo kalena waxa ku diyaar ah khubaro ka takhasustay sameynta website-yada iyo database-ka wixii inta dheer waxaad kala xiriiri kartaa nambarka WhatsApp-ka ee 25263449687 hamogaan haddaba Sahal Software International College hadeer iska diiwaangeli webka sahalsoftware.com magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maalintii labaad martigelinaysa dagaal qaraar oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa waxa uu u dhaxeeya laba ciidan oo markaasi ka soo kala jeeda Somaliland iyo SSC Khaatumo waxana wararka aynu haatan ka helayno ay sheegayaan in dagaalka xoogiisa uu soo qaboobayo isla markaana haatan rasaasta si goosgoos ah ay u maqlayaan dadka deegaanka wararka aynu ka helayna waxa ay sheegayaan in khasaare kala duwan uu dagaalka ka dhashay oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jira waxana markaasi xogta aynu ku helnaa ilaa haatan in dagaalka ay ku dhaawacmeen ilaa 9 ruux halka dhimashadana ay marayso 3 ruux oo labada dhinac ee dagaalamaya intaba kala ah dagaalkan ayaa waxa markaasi uu salka ku hayaa murano iyo khilaafyo markaasi muddooyinkii u dambeeyay ee u dhaxeeyay dadka deegaanka ee labada dhinac ka soo kala jeedo iyo sidoo kale aanooyin salka ku haya dilal qorsheysan oo hore uga dhacay gudaha magaalada Cerigabo dagaalkan ayaa haatan waxa markaasi la rumaysan yahay in si toos ah ay u soo galeen ciidamada SSC Khaatumo iyagoo garab siinaya dadka deegaanka ee ka soo jeeda dhanka SSC Khaatumo maadaama magaalada labada darafba ay degan yihiin wararka aynu haatan helayno waxa markaasi ay sheegayaan in dhanka SSC Khaatumo ay markaasi heleen gurmad xoogan oo markaasi uga yimid dhanka iyo magaalada Laascaanood waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalkan uu sii xoogeysan karo haddii markaasi labada dhinacba ay dagaalkaasi wadaan oo haatanba meelaha qaarkood laga maqlayo rasaas goosgoos warar hoose aanu helno waxay sheegayaan in ilaa haatan aysan jirin goobo la kala qabsaday iyo meelo markaasi lala kala wareegay balse ciidamada ay ku kala sugan yihiin goobihii ay markaasi ku dagaalamayeen ee labada daraf markaasi u dhaxaysa ciidamada SSC Khaatumo ayaa haatan waxa ay ku sugan yihiin sidaan xogta ku helno suuqa markaasi suuqa hoose sidoo kalena ciidamada markaasi Somaliland waxa ay ku sugan yihiin suuqa sare magaalada gudaheeda ayaa markaasi waxa laga maqlayaa rasaas teelteela oo labada dhinac mararka qaarkood ay isweedaarsanayaan maadaama labada ciidan ba ay isu muuqdaan
dhanka kale xogaha aynu helayno waxa ay sheegayaan in madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Ciro uu markaasi ka hadlay dagaalkaasi oo isagoona markaasi ku baaqay in ciidamada Somaliland wax dagaal ah oo ay qaadi karaan aysan jirin amarna aysan u haysan arintaasna lagu dhameyn doono wada hadal iyo sidoo kale wada xaajood wararkaanu ka helayno dhanka xafiiska madaxweynaha ee Somaliland waxa ay sheegayaan in xukuumadda haatan uu hogaamiyo ee cusub markaasi Cabdiraxmaan Ciro in arintan ay ku wajihi doonto waan iyo sidoo kale xal nabadeed ciidanka haatan ku sugan magaalada Cerigabo ee Somaliland oo ah ciidamo aad u xoogan ayaa waxa markaasi halkaasi la geeyay xilligii markaasi uu madaxweynaha ama talada dalka Somaliland uu hayay madaxweynihii hore ee haatan xilka ka degay Muuse Biixi Cabdi wararkaanu helayno waxa sidoo kale ay markaasi sheegayaan in dhanka kale madaxweynaha SSC Khaatumo uu markaasi safar shaqo oo muddo 2 bilood ah uu ugu maqnaa magaalada Buuhoodle uu dib ugu laabanayo saacadaha in soo aadan ama uu ku wajahan yahay magaalada Laascaano arintan ayaa loo sababeynaya xiisada ka soo cusboonaatay qaybo kamid ah gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Cerigabo waxaana markaasi la rumaysan yahay in arintan uu u tagayo magaalada Laascaano isla markaana uu qayb uga qaadanayo dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada Cerigabo si guud labada dhinacba waxa ay wadaan markaasi guluf colaadeed maadaama magaalada Cerigabo maalintii labaad dagaal aad u xoogan uu ka dhacay sidoo kalena dadka deegaanka intii barakici karta waa ay barakaceen inta kalena guryahooda ay markaasi kaga gabanayaan rasaasta labada dhinacba ay isweydaarsanayaan way jirtaa waxyeelo shacabka soo gaadhay maadaama madaafiic marka qaarkood la adeegsanayay iyo hub aad u culus inkastoo aysan cadayn khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray dadka shacabka ah waxaa jiro waan ay ku baaqayaan iyo wada hadal odayaal markaasi dhaqan iyo sidoo kale waxgarad waxa ayna sheegeen in arintan aysan ahayn arin markaasi ku haboon shacabka markaasi degan magaalada Cerigabo aysan ahayn dad ishuri kara isla markaana aan la dhaxdhigin wax colaada wixii warar ay ku soo kordhay si guud xaaladda magaalada Cerigabo iyo dagaalka goosgooska ay haatan ka soconayo halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal fadlan fikirkaaga qaybta faallada noogu reeb ma kula tahay in dagaal xilligan in uu ka dhex bilowdo dad markaasi in badan oo wadaag soo ahaa oo hal magaalo ku wada nool mase kula tahay in dagaalkaas ay ka dhalan karto natiijo wanaagsan fadlan qaybta faallada noogu reeb fikirkaaga